وأنا كشيء مجلس بشير أو شوكة سوماليا وحول الشيخ هو يدي أيام كجسوة تجيبون ودنا يورو بيان كسوة تجي هو ينوح إلى ذا يقول إيه كاري أو إيه إيمو أنا بنوع شقيستا أو حاجة كده قاعدة مركارنتاس مدن بيبايعها هستين عندي بقول نقوم أيه هويو مقعي هو منير محمود وشوكة هرجيسة ورويل عنو المادرنا هاي أيوه مهرسة الجبل وحصاب حيبوا المدكر دي بنا الجبل أور لا هاي لغة بلوضة هذه لو يدينا وحرارتها ونسلوجين وحنا كبلنا إنه المهاسي وأما إنه سلوجين إنه هالشيء سكوير المها يجي هاي كدبنا ولا اسكو مهريي مهر كنوع عاصة ميو شرعية هاي بولا مع صحة يا شيخ دين تسمح هيك قبتها وحلا هذا هنيك يبقاتك يسجارك يدرجودا كلامه استعمالها waxay tiri maalin maalmaha kamid ah salaada uu kacay baa wuxuu ugu yiri ilaahay masku qabiil baatiin had yaani ugu cibaadeysanaysa hadalka noocaasi miyo waxyeelaya marka xiriirkii guur ee naga dhaxeeyay mase kula sii joogi karaa beelada arinta noocaasa su'aasha kale waxa soo qoran in magaciisa ku sheegay Maxamuud Walaaleeye oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu dadka lagu soo eedeeyo hadiya jeer khamriga iyo zinada iyo diincayga dad baa u doodo ehelkooda ah ama gar yaqaan iyo wax la mida iyagoo u qiildeeyo oo marka qaar yiraahdo uu waalan yahay ama aqligiisu ma dhana haday laba sinaystay yihiin aynu isku meherinaaba iyo qiilal noocaas oo kala ah oo qiildayga noocaasi shariicada islaamka muxuu ka qabaa buu leeyahay nin baa soo qoray wuxuu waxaan ay wiil dhalinyaro ah culimadu waxay had iyo jeer nagu dhiiri galiyaan buu yiri waan magaciisa Axmed ku sheego Hargeysa joogo culimadu waxay nagu dhiiri galiyaan buu guurkiina sheekh aad buu cuslaaday buu yiri meherkii inantu waa qaali alaabta ugu qaalisanna way doonaysaa odayga yaraad buu rabaa islaantii lacag isbarasho abay oo hadda la bartay bay haddana mar labaad doonaysaa fijaanno wax lagu soo sameeyo xaaladdu way adag tahay waxaas oo dhan ma awoodno diintu maxay ka qabtaa arrinta noocaas maxaa si xala ayuu leeyahay ninka dhalinyarada ahi gabadh baa waxay leedahay wiil ayaan la sheekaystaa ballan guurna waanu gallay hooyaday baa arrintaa ii diiday bay tidhi marka ma hooyaan yeela mise ballanta ayaan oofiyaa oo wiilkaasan guurka la qaata wuxuu wiilka soo qoray ama qofka soo qoray bariyahan dambe waxa soo batay in labada qof ay isguursanaya ay intaan guur kuba dhicin sawiradooda ay meelaha ku soo dhajiyaan ama baraha bulshada ama baabuur iyo wax la mid ay ku soo dhajiyaan arrinta noocaasa iyadana shariicadu maxay ka qabtaa Sheekh Maxamed hooya ii yeerays ana waan shaqaystaa hooyada u tago raali gali nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimido wuxuu yiri waxaan kuugu imi inaan waan ku imid buu anigoo labadeedii waalid ka imi iyaga oo ooyaya marka rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam orad ku noqo sidaad uga oohisay uga qosli marka halkay joogto ka shaqayso iyada raali gali ilaa intay ku fasaxayso shaqada waxaa marka ka horeynaya idanka waalidka xataa jihaadkii markaan mutacayin ahayn ama aanu qofka si gaar ah ugu waajibin waxa la yiri waalidka laga idan qaato waanu iskuursanay marka horena waanu sii uuraynay way su'aashanina uurka isaga ahay waa sino ayuu ka yimi waladkaana garac baa loo yaqaanaa marka hooyadii buu raacayaa kan isaga ee ka dhalay gabadha marka dambe haba guursada ma raacayo caruurtiisana kama mid aha hooyadii buu ku abtirsanaya waa walad mar haddaanu meher ku dhalanin meherka horeysiis bay yiraahdaan Soomaalidu caruurtooda ku daraan waa se dambi waa gaf weeye waa ilma aanu dhalin oo wato marka arrintan aad looga waantoobo waa wax bulshadana ku ibtilaysan tahay ceebahooda ka mid ninka yiri ilaahay ma isku qabiil baatin ilaahay baad u doodaysa afadiisa ku yiri ilaahay baad leeda caabuda ilaahay ma isku qolaatin wa istihzaa billah ilaahay buu ku dheeldeelay qofka ilaahay ku dheeldeelana waa gaal quraanku ilaahay ku cadeeyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum ma ilaahay rasuulkiisa aayadiisa ku dheeldeeshay waxba cudur daaranin oo waan kaftamaya ku cudur daaranin waa gaalowdeen buu ilaahay aayada ku cadeeyay ka culimada u taga toobada ha loo qabto gabadha dib ha loogu meheriyo su'aasha kalena waxa nin gaaloobay ayay qaar u doodaan oo yiraahdaan wuu waalan yahay isagoo waalayn haday yiraahdeen wuu waalan inuu waashaba waa laga yaabaa haday doonayaan inay waali ku badbaadiyaan
in laga aqbalaaba laga yaaba ka daaya baynu leenahay qofku haddii garsoorka hortiisa uu yimaado oo dembi kaga caddaado xuduudda iyo xeer ciqaabeedka sharcigu dhigay mid ka mid ah in loo doodo nebi maxamed baa aada uga digay calayhi salaatu wasalaam asxaabigii usaamatu bnu zayd ruux dumarahoo sinaysatay ayaa nebiga hortiisa la keeno kiiskii ku caddaaday waa kii nebigu lahaa nebigu uga ergeeyo dee gabadhani waa gabadh laandheeroo caynkan ay tahay oo ergu ka galay aad buu markaa nebigu asxaabigii u huruufi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah war ma xeer ciqaabeed la fulinayo oo diinta ilaahay ka mida baad u doodaysaa u eriyey inankii uu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qofkan xalka sharcigaa la marayaa towbaddaa loo qabanayaa dib idaan ugu noqon baa lagu waaninayaa laakiin laga geli maayo dhinaca in la qariyo ceebtiisa su-aashan inanku ina soo weydiiyaa guurkiibaa qaali noqdee maxaa la yeelayaa dee horta midi bulshada u taallaayo marka dee aayaheenna laga fikirayo waa in guurka la dabciyaa dhallinyarada loo fududeeyaa isagana waxaynu leenahay dadka ilaahay wuu kala duwan yahay dee kuwa iyagu waxaa fatooshtaa faraha badan iyo filinjarkaa badan iyo fujiskaa badan raadsanaya dee iskaga tagoo qaar miyir qabaad helaysaaye haddaad doonto dee miyigaba ka soo guurso waxaa laga yaabaa halkii $10,000 uu ku kalifayay inaanu kun gaadhinba waxaagu marka qof dadku way kala duwan yihiine dee qolana tallaabo dheer bay qaadaa qola mid dhexe qola mid miyir qabta marka adiga laftigaagu dee tallaabada ha dheeraynine dadku waa kala noocyadu xataa waddanka goboladaa kala duwan dadkaa kala duwan deegaankaa kala duwan marka dadaad la jaan qaadi karta raadso way ku sahlanaan doontaa in sha allah su-aasha u dambaysaa waxay ahayd dad aan isqabin oo weli ismehersanin oo iyagoo weli ismehersanin laakiin doonaya inay ismehersadaan intay sawirro wada galaan sawirradii facebooka soo dhigaya oo meelahan xafladii keenaya oo ninkiiyo naagtiiba ishaystaanba wayba isqadimeenba horey u qadimayiin waa qaar hore usoo fadhiyaan mushkiladdii waxaa dhacday xishood darradii waxay keentay dhallinyaradii rag iyo dumarba inay hore usoo fadhiyaanba waxaad arkaysaa iyagii oo isku dhegan iyagii oo isdhunkanaya iyagii oo isjiidanaya iyagii oo isxambaarsan oo hadda aan isba qabin oo weli isu mehersanayn marka waa dembi macaasiday ka mid tahay laba qof oo kale ajnabiya sharcigu wuxuu ogoliyay markay isguursanayaan inay marka hore is eegaan wada hadlaan intay danahooda ka wada hadlayaan ay danahooda dhammaysanayaan isku qanciyaan unbaa loo ogolyahay xaaraantii ila xaaraan bay ahayd laba ajnabi inay kala wada sheekaystaan ama is eegaan xaaraan bay ahayd marka waxaa loo xalaaleeyey aayahoodan ay ka tashanayaan iyo is aragoodan intay isku qancayaan intaasuba xalaal ahayd laakiin waxaan kaloo dhan waa xaaraan markaa dhallinyaradu hay iska daayeen ilaahayna ha ka cabsadeen gaadhigan sawirka lagu soo dhajinay waxaad arkaysaa marka qaarkood inanta sawirkeedii oo aada u weyn baa gaadhi lagu soo dhajinaya maxay ninka noocaasi nin hinaasalaba maha ninkaas raganimadii baa ka luntayba warkaalada taydan ila daawada ila wadaaga weeyadee saasay ka dhiganta haddaad ajaanibta tidhaahdo ila daawada waxaaskayga ila wadaaga markaa dabiirka wanaagsan iyo diintaba aynu ilaalino iyo akhlaaqda fiican ilaahayna ha laga cabsado wallahu subxaanahu watacaala aclam sheekh maxamed inantaa tidhi hooyaday baan amarkeeda qaataa mise ballantan oofiya marka kol haddaanay weli isguursanin oo aanay weli isqabin waxaad ku dadaalaysaa inankan isaga ah iyo hooye inaad isfahamsiiso haddii jacayl hooye iyo jacayl ninku hayo bal labada jacayl iswaafaji oo haddaad aaminsantahay inuu kuu qalmo weeye inanku diin ahaan iyo akhlaaq ahaan oo kufkaagii uu yahay hooye ku qanci haddii aad ku qancin kari weydana kol haddaydaan ismehersanin inaad iska daysaa kuu fiican daacada waalidku wax weyn weeye waa laga yaabaa inkaarta gantaalka inkaarta kaa dabageyso in isagaba isku qarxdaan oo soo kala boodaan taladeennu waa taa weeye xagga sharcigana tadallum wax la idhaahdaa jiro waalidku hadduu diido inuu qof kuf-a kuu guuriyo qaadigaa la tagaayo waa la ashkatoodaa qaadigaa sidaa isugu kiin meheriya laakiin waynu dareemi karaynaa dee arrinku inuu sii adkaanayo haddii hooye iyo waalidkii la ashkateeyo inay iyaduna dee buuqii sii badanayo marka isfahamtiistaa ku day inaad isfahamsiiso hadduu fahamkaasi suuroobi waayana hooye raaligeli wallahu aclam ilaahay subxaana watacaala sheekha ka abaaliya miisaanka xasanaadkana u saaro innagana haynagu anfaco wajazaakum allahu khayr wsala allahuma calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.